hay-adda maxalliga ee Somaliland Waybiir iyo hay-adda kale Helsinki Diakonis Foundation oo taageero ka helay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Finland ayaa waxay munaasabad ay u qabteen arday ka qalin jabisay barnaamijka tababarka xirfadaha nolosha. kulankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay ardaydii hore ee ka qalin jabisay barnaamijka tababarka xirfadaha nolosha iyo agaasimayaasha wasaaradaha ciyaaraha, waxbarashada, mas'uuliyiin ka socotay shirkadaha ganacsiga, saraakiil ka socotay wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale shaqaalaha hay-adda Somaliland Waybiir. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha hay-adda Somaliland Waybiir Maxamed Mahad Damac oo faahfaahin ka bixiyay nooca tababarkani. kulankani waa kulankii labaad maaha kii koowaad. kulankii koowaad wuxuu dhacay sanadkii 2019 bishii 11aad waqtigaasoo ay 5 batch ama saxan u naqaano 5 kooxood ay ka qalin jabiyeen barnaamijkan. marka sida wada ogsoonahay kooxdiiba waa 10 qof oo dhamaanteen ma ka wada daragsanahay. waxaana leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin maadaama waqtigaas xaalad adag ay ahayd haddana ay noo suurta gashay inaynu wadno barnaamijkan oo maanta boqolkii sanadkan loogu talagalay ay maxay sanadkan qalin jabiyeen. waxa isna sidoo kale madasha ka hadlay gudoomiyaha hay-adda Somaliland Waybiir Cabdicasiis Xirsi Warsame isagoo sheegay in xirfadaha ay barteen ardaydan ay muhiim u yihiin shaqo helidda. waxaana ardayda uu ku dhiirigeliyay inay wacyigelin ay u sameeyaan dhalinyarada kale. soo marka gaariga kale biraha iyo waxa la gelinayo soo xayr lama mariyo sayna u jajabintay waxa waa barnaamijyada barateen. qofku aqoon kasta ha barto haddaanu barnaamijyadan oo kala aanu qaadan dhinacu buu arrimihiisu yara raf ka noqonaya. laakiin arrimahan waxay qof ka dhigaan more soft skills basiyaan. waxyaabaha ugu qaalisan waxa kamid ah communication skillka oo aad barnaamijyadan ku qaadateen. qof kasta idinka kamid waxa la rabaa sanadka dambe inuu halkan la yimaado isagoo leh qof balwada ku jiray baan ka soo kaxeeyay mid tahriyay baan joojiyay mid caynkana baan sidan ka dhigay fursadaha noocaas aan ka faa'iideystay storieska noocaas inaynu share gareyn doono ka wada sheekaysan doono ayaan insha Allah dhamaantiin ka rajaynaya. munaasabadda waxaa iyaduna hadal ka jeedisay Farax Ayaan la Dayax Weerar oo ah madaxa suuqgeynta ee shirkadda gaadiidka ee Dhaweeye. qof dhalinyara suuq waa la tartamaya rag iyo dumar tartanka lagu wada jira. tartanka lagu wada jira waa mid xor oo xalaal ah. qof walbana waxay gacantiisa iyo aqoontiisa u goysay leedahay. muhiim weeyaan inaad barnaamij sidan oo kale ka soo qayb gasho wax barata. laakiin waxa ka sii muhiimsan sidee baad tricks ka duwan dadka kale u keeni kartaa. imika dhamaantood waa is wada garab fadhinaa. waxaan nahay ashqaas dhalinyaro ah qof walba mustaqbal rajaynayo. laakiin maxaynu ku kala duwannahay? waxaynu ku kala duwannahay haddii aad doonayso inaad samaysid wax ka duwan dadka inaad gaadhid achievement fiican waa inaad samaysaa wax ka duwan dadka kale. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Saciid Cabdilaahi Khaawi ayaa isna ka hadlay munaasabadda waxaana uu sheegay life skills management runtii oo ah barnaamij aad u muhiim ah qofku inuu barto sida uu noloshiisa u maamulayo waa shay aad u muhiim ah. waxa isna halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abokor. barnaamijka si gaar ah waxaan ku faraxsanahay maanta aan uga soo qayb galay wax weeyaan inuu isbedel ku sameeyo nolosha dhalinyarada. xirfadaha nolosha sidoo runtii aad iyo aad bay u farbadiyeen. laakiin waxa weeye xirfadda nolosha ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu fahmo nolosha ku nool yahay waaqaca iyo halku doonay inuu higsado. labada hadduu qofku fahmo wuxuu markaa ka gudbiyaa caqabado fara badan. barnaamijka tababarka xirfadaha nolosha oo la bilaabay sanadkii 2019 soconna doona ilaa sanadka 2022 ayaa muddadii uu socday waxa dhamaystay 150 dhalinyaro. waxaana yoolka hiigsiga ee barnaamijkaasi uu yahay in tababar la siiyo ilaa 600 oo dhalinyaro. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.